Assalaamu calaykum. Maanta waxaan jeclaystay inaan idila wadaago filim la soo saaray 2017 oo isugu jira drama, horror iyo weliba mystery. Magaciisuna yahay Radius. Ku soo dhawaada muuqaalkeena kuna raaxaysta sheekada filimka. Filimku wuxuu ku bilaabmayaa duufaan kadibna waxaynu arkaynaa shil baabuur iyo nin ka badbaaday oo ku socda dhanka magaalada. Intii uu sii socday gaari wadada marayay ayaa ku soo beedhay, laakiin nasiib wanaag uu ka leexday waanu ka badbaaday. Ninkii ayaa u orday dhanka gaariga si uu u eego darawalka, balse wuxuu arkay gabadhii waday gaariga oo meeyda. Intaa kadib wuxuu wacay ambalaasta, inkastoo aanay aad isu maqleen khadka oo daciif awgii. Haddana gabadhii taleefanka ka qabatay waxay weydiisay magaciisa iyo halka uu joogo, laakiin waxa la yaab noqotay ninkan inaanu garanayn cidda uu yahay iyo weliba magaciisa. Liisankii gaadhiga ayuu la soo baxay wuxuuna arkay inuu bilaa magac yahay. Isla waqtigaa shimbir dhimatay ayaa ku dul dhacday baabuurkiisa waanu cabsaday, taasoo keentay inuu cararo oo uu cagaha wax ka dayo. Ugu dambeynna wuxuu soo gaaray goob maqaaxi ah. Markii uu gudaha soo galay wuxuu arkay in qof kasta oo maqaaxida ku sugan meyd yahay. Si lama filaana gaadhi bas ayaa dibadda ku dhacay gaadhi kale, waxaana isla markiiba dhintay darawalkii. Ninkiina wuxuu jeexay shaadhkiisa si uu uga dhigto maaskaro. Maqaaxidii ayuu khariirad ka soo qaatay wuxuuna galay kaynta. Intaa kadib wuxuu soo gaadhay meel uu maleeyay inay tahay gurigiisa, wuxuuna toos u garaacay albaabka. Markii ay cidi ka furi weydayna wuxuu jabiyay daaqadda. Gudaha guriga wuxuu dhageysanayaa fariinta soo dhaweynta wuxuuna ogaaday inuu yahay codkiisii. Sidoo kale wuxuu ka dhex ogaaday inuu magaciisu yahay Liam, waxaana maskaxdiisa ku soo dhacday mar uu ku dhex go'doonsanaa doon yar. Markii uu ka soo baxay qolka shaawarka wuxuu dhageystay wararka, kuwaas oo sheegaya suurtagalnimada inuu dhaco dagaal biology ah iyo wasakhowga hawada oo sababi kara neef xumo. Liam wuxuu miraayada jabtay ka dhex arkay nin jooga bannaanka, waanu u qayliyay si uu ugu sheego inaanu bannaanku ammaan ahayn. Markii uu maqli waayena wuxuu ku tusay fariin ahaan. Ninkiina isagoo u soo gudbaya dhanka Liam ayuu si kadisa u geeriyooday. Intaa kadib isagoo wareersan oo isku mashquulinaya qoridda wararkii uu dhageysanayay, wuxuu maqlay tuka ka qaylinaya meel aan fogeyn. Bannaanka ayuu u soo baxay. Markii uu soo dhawaaday tukihiina wuu dhintay. Cajaa'ib shiikhow. Liam wuxuu ka shakiyay naftiisa iyo inuu sabab u yahay dhimashada cidda uu soo dhawaado, isagoo isku dayay inuu mitiriyo tukaha iyo meeshii uu taagnaa inta u dhaxaysa. Waxa gadaashiisa ka soo muuqday baabuur waanu ka fogaaday si aan wax u yeelin darawalka. Intaa kadib Liam wuxuu isku dayay inuu waco 911ka booliska, laakiin wuu isbedelay intii aanu wicin ka hor. Wuxuu khadka ka soo talaashay stoorkiisa. Cuntadii jikada taalena wuxuu ku guray sanduuq. Sidoo kale wuxuu dhageysanayay warka sheegaya inay dhimashadu sii kordhayso sabab la'aan. Daaqadihiina wuu iska daboolay. Isla habeenka boolisku waxay yimaadeen gurigiisa iyagoo raadinaya isaga, maadaama ay soo arkeen baabuurkiisa. Liam wuu ka dhuuntay intii ay baadhayeen guriga. Mid ka mid ah booliska oo isu diyaarinayay inuu soo aado dhanka stoorka, waxa hortiisa ku soo dhacay dhowr tuke oo meeyda, taasoo keentay inay cabsato oo ay iskaga cararto goobta. Habeennimadii Liam wuxuu ku riyooday shil baabuur. Markii uu soo toosayna wuxuu bannaanka ka maqlay guux baabuur, wuxuuna arkay gabadh gurigiisa sii galaysa. Gabadhiina waxay maqashay sanqadhiisa waxayna soo aaday dhankiisa iyadoo isku dayaysa inay la hadasho. Liam wuxuu u sheegay inaanay u soo dhowaan, laakiin naagtii waxay ugu yeedhay magaciisa waxayna ka codsatay inay wada hadlaan. Markii uu ka furay albaabka nasiib wanaag gabadhii waxba may noqon, waxayna u sheegtay inay baabuurka la saarnayd markii uu shilku dhacay. Uu yaabay wuxuuna u sheegay inaanu goobta cidna ku arag. Sidoo kale wuxuu u sheegay inaanu waxba xasuusan. Iyaduna waxay u caddaysay inay la mid tahay oo aanay waxba xasuusan. Waxay rabtaa inay gudaha soo gasho laakiin wuu la meeraysanayaa. Isla waqtiga yar ayaa u soo dhawaaday wuxuuna arkay inaanu waxba noqon. Liam wuxuu u qaatay inaanu sabab u ahayn dhimashada cidda u soo dhawaata. Gudaha ayay soo galeen wuxuuna weydiiyay sida ay ku soo garatay guriga, waxayna ugu jawaabtay inay boolisku u sheegeen qofka baabuurkan ku diiwaan gashan inuu degan yahay gurigan. Naagtii waxay soo qaatay sawirka ilmo yar, laakiin Liam ma garanayo cidda uu yahay. Intaa kadib isagoo ku jira jikada ayay ka soo muuqatay gadaashiisa, wuxuuna si kadisa u xasuustay inay la saarnayd gaadhiga. Wuxuu weydiiyay inay garanaysto istabtii lagu joojiyay baabuurkooda. Nasiib wanaag waxay heleen khariirad sheegaysa inay u dhowdahay buundada. Subaxii xigay waxay raaceen baabuur iyagoo ku sii jeeda buundada. Intii ay sii socdeen waxa dhex martay isbarasho. Liam ayaa weydiiyay magaceeda waxayna u sheegtay inuu ugu yeedhi karo Jane. Isna wuxuu u sheegay magaciisu inuu yahay Liam. Waxay yimaadeen buundadii. Jane waxay sheegtay inaanay waxba xasuusan haba yaraatee. Liam wuxuu dareemayaa inuu garanayo gabadha laakiin wax aad ma xasuusto. Jane
waxay sheegtay inay nolosheeda oo dhan ka xasuusato hal riyo. Liamna wuxuu ugu jawaabay inay wanaagsan tahay maadaama oo ay wuxuun xasuusanayso. Wuxuuna intaa u raaciyay inay muhiim tahay inay soo hubiyaan goobta uu shilku ka dhacay. Intii ay sii socdeen wararku waxay sheegayaan waxaan inay ka baxsan yihiin dabiiciga. Markii ay yimaadeen goobtii uu shilku ka dhacay, waxay arkeen goobaabin madow oo ku wareegsan meesha. Liam wuxuu ogaaday inaanay waxani dab ahayn. Wuxuuna Jane weydiiyay bal inay xasuusato meeshii ay joogtay markii ay soo toostay. Waxayna isku dayday bal inay u sheegto meeshii ay joogtay markay soo toostay. Liam wuxuu canaan kala dul dhacay naftiisa, isagoo sheegaya inuu ka dambeeyay dhammaan dadkii dhintay. Laakiin waqtigan wuxuu u maleynayaa inay istaagtay arrintii. Jane waxay bilowday inay ka baqdo. Wuxuuna isku dayay inuu dejiyo laakiin way ka carartay. Wuu ka daba tagay isagoo doonaya inuu wax fahansiiyo. Jane waxay ka baqanaysaa inay arrintii dib u soo noqoto oo ay iyaduna dhimato. Intaa kadib waxa goobta soo gaadhay gabadh wadata baabuur waxayna weydiisay inay wax walba hagaagsan yihiin. Muran kadib Jane ayaa ka fogaatay Liam. Gabadhiina waxay ka soo degtay baabuurka iyadoo sheegaysa inay tahay boolis. Sidoo kale waxay sheegtay inay raadinaysay meeshii laga helay baabuurkiisa. Intaa kadibna si lama filaan ah ayay u geeriyootay. Jane way sii qaracantay markay aragtay waxa dhacaya waanay carartay. Laakiin wuu soo qabtay isagoo u sheegaya inaanay waxba noqonayn. Waxay aadeen meel beera oo uu joogo orgi. Liam ayaa Jane u sheegay inay ka fogaatay isaga iyo orgiga. Markii ay ka fogaatayna orgigii ayaa dhulka ku dhacay isagoo meeyda. Liamna wuxuu u sheegay inuu isagu sabab u yahay dhimashada laakiin ay iyadu joojin karto. Waxay isku raaceen inay aadaan cusbitaalka, gaar ahaan kuwa ku yaala degmooyinka maadaama oo ay dadku ku yar yihiin. Markii ay galeen cusbitaalkii, dhakhtarku wuxuu u sheegay inay ahayd inuu xilli hore yimaado cusbitaalka. Waxaana la geeyay qaybta iskaanka. Jane waxa laga codsaday inay u baxdo banaanka. Labadooduba waxay isku raaceen inuu qabo claustrophobic oo aanu joogi karin keligii. Laakiin neeraskii umay ogolaan. Ugu dambeyn markii ay codsadeen waxay u ogolaatay inay la gasho qolka oo kaliya. Markii ay banaanka u soo baxeen waxay arkeen warka oo sheegaya dhimashada dadkii uu ka mid ahaa ninkii beeraleyda ahaa ee ku ag dhintay guriga Liam. Markii ay intaa maqleen waxay isku dayeen inay ka baxsadaan goobta. Laakiin waxay arkeen booliskii waxayna dib ugu soo noqdeen dhakhtarkii. Wuxuuna u sheegay inaan waxba laga helin oo uu negative yahay. Waxayna u yaaceen dhanka albaabka kale markay arkeen booliskii. Liam wuxuu galay wiishkii halka Jane ay aragtay warqad ku saabsan dad la waayay. Intii ay warqadda eegaysana waxa xidhmay albaabkii wiishka waanay kala hadheen. Jane waxay hoos u raacday jaranjaradii si ay mar kale ula kulanto Liam. Liamna dadkii wuxuu u sheegay inay ka baxaan wiishka marka uu furmo albaabku. Markii uu istaagayna dadkii wiishkii way ka dareereen. Ugu dambeynna way isheleen waxayna ka baxsadeen cusbitaalka. Habeennimadii waxay dhex seexdeen gaadhiga. Liam mar kale wuxuu ku riyooday shilkii gaadhiga. Markii uu soo toosayna wuxuu arkay gacanta Jane oo uu ku xidhan yahay faraanti aroos. Subaxnimadii Jane waxay dhageysatay idaacadda booliska oo ka sheegaya inay ka war hayaan inay la joogto Liam oo ay magaceedana garanayaan. Sidoo kale waxay maqashay ninkeeda oo idaacadda ka hadlaya isla markaana ka codsanaya inay timaado guriga. Waxayna arrintii u sheegtay Liam iyadoo ka codsatay inuu raaco bal inuu ka caawiyo xasuusta ninkeedu. Laakiin wuu diiday maadaama oo ay khatar tahay inuu dhex galo dadka. Ugu dambeyn waxay ku qancisay inuu raaco iyada. Ciwaankii ninkeedana waxay ka heleen boostada. Markii ay soo gaadheen guriga ninkeedii ayaa ku soo cararay maadaama oo uu aqoonsaday. Waxayna ka codsatay inuu soo fuulo gaadhiga. Intaa kadib saddexdoodiiba waxay yimaadeen meel beera. Waxayna arrintii u sheegeen Sam oo ah ninkeeda laakiin muu rumaysan. Xitaa wuxuu rumaysan waayay inaanay waxba xasuusan. Wuxuu isku dayay inuu waco booliska. Laakiin Jane ayaa u sheegtay haddii aanu caawin inay raacayso Liam. Dhinaca kale Liam wuxuu helay shimbiro wuxuuna doonayaa inuu tuso arrintu inay dhab tahay. Intaa kadib Sam wuu cabsaday waanu ogolaaday inuu caawiyo. Wuxuuna geeyay bakhaarkiisii si ay halkaa ugu dhuntaan dhowr maalmood. Intaa kadib waxay dhageysteen warbixino ku saabsan xiriirkooda. Waxayna heleen jaraa'id uu ku sawiran yahay wejiga Jane iyo magac kale. Sam ayaa isla waqtigaa u sheegay Jane inay lahayd mataan kale oo u eg. Wuxuuna u sharaxay in la waayay meel ay Jane iyo cidhib dhigtay. Murugtii ay ka qaadeen Jane ay go'aansatay inay iska tuurto buundada. Xilligaas oo uu Liam ka soo muuqday buundada kana joojiyay inay isdisho. Isla markaana uu u sheegay inuu u kaxaynayo meesha ay doonayso. Sheekada kadib Jane waxay codsatay inuu u doono cunto. Markii uu baxayna Jane waxay dareen u qaaday Liam maadaama uu badbaadiyay nolosheeda hadda ka hor. Sam markii uu soo laabtay wuxuu arkay Jane oo ku jiifta dhabta Liam waanu ka xumaaday. Liamna banaanka ayuu u soo baxay si uu u seexdo meel kale. Sam wuxuu ka codsaday inuu la hadlo laakiin waxay u sheegtay inaanay garanayn. Liam wuxuu xasuustay habeenkii shilka wadadii ay marayeen. Maalintii xigtay wuxuu khariirada ka calaamadiyay meel uu malaynayo inuu ku leeyahay qol. Waxay isku dayeen inay Sam ku qanciyaan inay aadaan goobta laakiin wuu diiday. Intaa kadib Jane waxay heshay buug ay ku qoran yihiin waxyaabo ku saabsan iyada
oo uu qoray Sam kuwaas oo ay ka mid yihiin xilligii ay kulmeen waxay jeceshahay iyo waliba waxay neceb tahay. Sam markii uu soo noqday wuxuu u sheegay inay dhuntaan maadaama ay boolisku garaacayaan albaabka. Labadoodiba way dhunteen wuxuuna furay albaabkii. Booliskiina way qabteen waxayna u kaxeeyeen dhanka gaariga. Liam iyo Jane oo isku dayay inay ka baxaan albaabka dambe waxa qabtay booliskii. Markii ay xidheenna waxay isku dayeen inay kala fogeeyaan. Laakiin Liam ayaa u sheegay inay dhamaantood dhimanayaan haddii ay kala fogeeyaan. Si kadisana dhammaan booliskii iyo dadkii kale ayaa u dhintay. Ninkii ka soo hadhay booliska markuu arkay waxa dhacaya wuxuu soo dhaqaaqay dhankiisa. Wuxuuna isla markiiba u dhintay si degdeg ah. Ugu dambeyn Sam wuxuu aaminay waxaan dhacaya inaanay ahayn khaladkooda. Intii ay ku sii socdeen qolka waxay istaageen kaalin shidaal. Waxayna arkeen war sheegaya inuu shilku ahaa nooc cosmic ah. Waxayna bilaabeen inay isaga cararaan goobta. Waxay soo gaadheen qolkii ay ku socdeen. Subaxnimadii Liam ayaa ka soo baxay qolka si uu u aado webiga. Jane iyadoo isku dayaysa inay shiddo waxay heshay jaraa'id ay ku xusan tahay waayitaanka walaasheed. Waxayna xasuusatay wada sheekaysigii dhex maray iyada iyo Liam shilka ka hor. Dhinaca kale Liam oo fuushan doon yar ayaa xasuustay Jane walaasheed oo uu meydkeeda ku tuuray webiga. Dhinaca kale Jane waxay buuggii ku aragtay magaceeda dhabta ah inuu yahay Rose. halka markay xaaladdu marayso filimku wuxuu isku jarayaa shilka ka hor Liam oo isku dayay inuu suuxiyo Jane taasoo sababtay inay shil galaan. Markii ay badbaadeenna Jane oo cararaysa waxa dhacay shucaac xoogan oo cosmic ah kaasoo sababay inay isku xidhmaan labadoodu. Aynu ku noqono halkii ay inoo marisay sheekadu. Liam wuxuu ka soo baxay webigii waanu mantagay. Jane waxay la soo baxday qori waxayna ka codsatay inuu u sheego xaqiiqada laakiin uma jawaabin. Waxay ku soo laabteen qolkii oo ay joogaan niman fallaaga ah. Liam ayaa baxsaday laakiin Jane ayaa u sheegtay inuu istaago. Waxayna nimankii u sheegtay inay iska baxaan haddii ay doonayaan inay noolaadaan laakiin may rumaysan. Liam ayaa dib u qaaday dhowr tallaabo waxaana dhintay laba ka mid ah nimankii. Jane way carartay laakiin waxa toogtay ninkii soo hadhay. Waxaana xaggiisa u soo cararay Liam si uu u dilo. Markii uu dhintayna wuxuu arkay Jane oo caloosha laga toogtay. Intaa kadib wuxuu geliyay baabuurka wuxuuna u soo qaaday cisbitaalka. Waxaana loo qaaday qolka gargaarka degdega ah. Isaguna wuxuu iska toogtay madaxa si aanu dadka u dhibaateyn. Filimkuna wuxuu ku dhamaanayaa halkan. Waad ku mahadsantihiin daawashada muuqaalka. Ha ilaawin inaad muuqaalka like saarto.